maxaad ka taqaanaa waddamada uu Mareykanku ku leeyahay deynta ugu badan? Dowladda Mareykanka waxaa deyn ahaan ugu maqan lacag dhan 7.3 trilyan oo dollarka Mareykanka ah. Haddaba daawade wax ka ogow 10 dal ee ugu badan ee deynta ka haysta waddanka Mareykanka. 1. Waddanka Japan waxaa lagu leeyahay 1 trilyan oo dollarka Mareykanka ah. 2. China waxaa lagu leeyahay 867 bilyan oo dollar. 3. UK waxaa lagu leeyahay 655 bilyan oo dollar. 4. Belgium waxaa lagu leeyahay 354 bilyan oo dollar. 5. Luxembourg waxaa lagu leeyahay 329 bilyan oo dollar. 6. Cayman Islands waxaa lagu leeyahay 284 bilyan oo dollar. 7. Switzerland waxaa lagu leeyahay 270 bilyan oo dollar. 8. Ireland waxaa lagu leeyahay 255 bilyan oo dollar. 9. Taiwan waxaa lagu leeyahay 226 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Ugu dambeyn 10. India waxaa lagu leeyahay 224 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Daawade tiraab mar kastaba kala soco xogaha dunida iyo kuwa Soomaalidaba.